waqtiga waa gabagabo dalka waxa uu ku jiraa xaalad doorasho muqdisho dhuusamareeb iyo baydhabo waxaa ka bilowday doorashada xildhibaanada golaha shacabka jowharna waxaa la dhowrayaa maalmaha soo aadan in ay bilaabaan guddiga doorashooyinka xukuumadda iyo beesha caalamka waxa ay baaqiyo isdaba joog ah u dirayaan maamulada aan weli bilaabin doorashada garowe iyo kismaayo kama muuqato saansaanta doorashada xildhibaanada golaha shacabka haddaba waxaa la isweydiinayaa maxay u dhaqaajin laayihiin Axmed Madoobe iyo Dani oo la rumaysan yahay in isbahaysi gaar ah uu ka dhaxeeyo dadka qaar ayaa ku doodaya in dhowr jeer ay fashiliyeen maamuladaas heshiisyo doorasho iyagoo ka dhex eegaya danahooda gaar ahaaneed iyo kuwa dawladaha Imaaraadka iyo Kenya Dani iyo Madoobe dhawaan ayay ku kulmeen Garowe waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo damaca siciidani ee hoggaanka dalka inkastoo la soo sheegay in Axmed Madoobe arrinkaasi aanu qanaaco xoogan ku qabin balse waxaa jira maslaxooyin ay wada ilaashanayaan oo ka dhaxeeya oo keenaya in ay isgarabsadaan waxaana ka mid ah in deegaan doorashada labada magaalo lagu soo koobo hal magaalo si ay saameyn ugu yeeshaan xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad in dib u dhaca doorashada ay ka dhigtaan mid ay ku gorgortamaan si ay u helaan xildhibaano iyaga taabacsan oo ku aragti ah iyo dhaqaale Dani ayaa la soo sheegayaa in uu wali raadinayo dhaqaale ku filan oo uu ku galo doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya waana caqabad kale oo dib u sii dhigaysa doorashada xildhibaanada Axmed Madoobe waxa uu wali ku dhagan yahay in dhammaan kuraasta ka imaanaya Jubbaland la geeyo Kismaayo meeshan laga saaro gobolka Gado arrinkaas oo culays ku sii noqonaya doorashada gaabiska ku socota ee Soomaaliya